rooble ummaddu waxay malaha u haysataa inuu xildhibaan barqad jaamac batuun oo ka tirsan golaha wakiilada jamhuuriyadda Somaliland ee dhawaan la doortay biloodun ka hor oo dhaliilo baan u jeediyay isla markaasina ku daruuray ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya inuu jaarkana isla markaasina warbaahintu ay dadka Soomaaliyeed siyaabo fara badan ay hadal waxaa jirtay wasiir Khadiijo oo dabaaldegtay waqtigii uu soo baxay barqad jaamac batuun oo cod aad u sareeya ku soo baxay oo dabaaldegtay sheegtay inay gaari bulletproof oo iibin doonto oo hadal gaarigii ka soo ummadda Soomaaliland shacabkeeda iyo shacabka Soomaaliyeed haddii aad dadka wax u qabanayso qaraxyada Muqdisho ka dhacaya ee dadka soo qixiyay wax ka qaban lahayd nidaam xumada Muqdisho ka jirta ee taandooyinka la isku dooranayo ay wax ka qaban lahayd shacabka dhibaataysan ee qowraca iyo qaraxa ka soo cararaya ee barta soo magan galay marka horeba kaama yimaadeen haddii nolol adiga ku bidayaan adiguna waa adigii Hargeysa nabadda iyo nolosha ku haystay ee joogay waa adigii shacabka Soomaaliland ku dhex noolaa cid curfi iyo cuqdad ku haysamay jirin laga waxaan ku leeyahay curfiga iyo cuqdadaad ummadda ku kala dhex abuuraysaa waa taa maanta Muqdisho aad ku baabiinayso waa taa taariikh xumada maanta aad ku leedahay xisbi ahaan xildhibaan ahaan iyo ummad ahaan ma taageersanin dad Soomaaliyeed oo dalka marti ku ah in si degdega loo saaro in hantidooda lala wareego waxaan kula soconana xukuumadda maaha laakiin laascaanood iyo gobolka Sool Somaliland iyo duniduba waqtiga waxa ka dhacaya inay tahay ama dhibta ay tahay waa dhiigga dadka dhayal u daadanaya in dhiigga dadka la joojiyana wasiirka arrimaha gudaha ku taageersanna jananadaan ku taageersanno madaxweynaha ku taageersanna shalay tolo cidii la dilayay ee baaskoolada lagu dhuftay ee meedkiisa naloo soo sheegay gudoomiye xisbiga wadani waa cid kale mu hayn dabcan khalad uu dhici karaya laakiin in la boombooniyo oo waji siyaasiga laga dhigo oo roob lagu ka dhigo waa ayaan dar Somaliland baanu ka simannahay mucaarid iyo muxaafidba adiga waxa ku taala ayaha shacabka Muqdisho ee filimada Hindiga aad ku dul shilaysaan inaad ka talisaan laakiin in la boombooniyo oo waji siyaasiga laga dhigo oo roob lagu ka dhigo waa ayaan dar Somaliland baanu ka simannahay mucaarid iyo muxaafidba adiga waxa ku taala ayaha shacabka Muqdisho ee filimada Hindiga aad ku dul shilaysaan inaad ka talisaan rooble ummaddu waxay malaha u haysataa inuu ra'iisul wasaare Soomaaliyeed yahay horta waa ra'iisul wasaare reereed dhalishu Somaliland ku dhaliilayana hadduu dhiigga shacabka Muqdisho joogaa aanay isaga waxba laahayn anaga dhiigga shacabka Somaliland joogaa dheema nagala qaalisan markay timaado ilaalinta nabadgelyada markay timaado dhowridda xuquuqaha asaasiga ee nafta iyo maalka iyo dhiigga iyo muwaadinimada Somaliland leh waa mid aanu kala simannahay xukuumadda waa mid aanu ku taageersannahay sugidda nabadgelyada xukuumadda annagoo mucaarida oo kala aragti duwan laakiin Somaliland baa namidaysa waxaan leeyahay rooble mixnada iyo munaafaqada aad doonaysa inaad ka dhex dhaliso ummadda Somaliland shacabkeeda iyo shacabka Soomaaliyeed haddii aad dadka wax u qabanayso qaraxyada Muqdisho ka dhacaya ee dadka soo qixiyay wax ka qaban lahayd nidaam xumada Muqdisho ka jirta ee taandooyinka la isku dooranayo ay wax ka qaban lahayd shacabka dhibaataysan ee qowraca iyo qaraxa ka soo cararaya ee barta soo magan galay marka horeba kaama yimaadeen haddii nolol adiga ku bidayaan adiguna waa adigii Hargeysa nabadda iyo nolosha ku haystay ee joogay waa adigii shacabka Somaliland ku dhex noolaa cid curfi iyo cuqdad ku haysamay jirin laga waxaan ku leeyahay curfiga iyo cuqdadaad ummadda ku kala dhex abuuraysaa waa taa maanta Muqdisho aad ku baabiinayso waa taa taariikh xumada maanta aad ku leedahay xisbi ahaan xildhibaan ahaan iyo ummad ahaan ma taageersanin dad Soomaaliyeed oo dalka marti ku ah in si degdega loo saaro in hantidooda lala wareego waxaan kula soconana xukuumadda maaha laakiin laascaanood iyo gobolka Sool Somaliland iyo duniduba waqtiga waxa ka dhacaya inay tahay ama dhibta ay tahay waa dhiigga dadka dhayal u daadanaya
in dhiigga dadka la joojiyana wasiirka arrimaha gudahaanu ku taageersanna jananadaanu ku taageersanno madaxweynahaanu ku taageersanna shalay tole ciddii la dilayey ee baaskolada lagu dhuftay ee meydkiisa naloo soo sheegay guddoomiye xisbiga waddaniba cid kale muu hayn dabcan khalad wuu dhici karaya laakiin in la buunbuuniyo oo weji siyaasiya laga dhigo oo roob lagu ka dhigo waa ayaan daro somalilan baanu ka simannahay mucaarid iyo muxaafidba adiga waxaa kuu taallaa aayaha shacabka muqdisho ee filimada hindiga aad ku dul shilaysaan inaad ka talisaan rooble ummaddu waxay malaha u haysataa inuu ra'iisul wasaare soomaaliyeed yahay horta waa ra'iisul wasaare reereed dhalishu somalilan ku dhaliilayana hadduu dhiigga shacabka muqdisho joogaa ayna isaga waxba laahayn annaga dhiigga shacabka somalilan joogaa dheema nagala qaalisan markay timaaddo ilaalinta nabadgelyada markay timaaddo dhowridda xuquuqaha asaasiga ee nafta iyo maalka iyo dhiigga iyo muwaadinnimada somalilan leh